السلام عليكم ورحمة الله. iskuullada ugu la yaabka badan caalamka iyo shanta ugu muhiimsan. Kan waa iskoolka sixirka. Iskoolkan waa iskuul lagu baranayo sixirka laga soo bilaabo raafaysiga ilaa sixirka noocyadiisa kala duwan. Waxaana iskuulkan wax ka barta arday gaaraysa ilaa 40,000 oo qof habka online-ka ah duruustooda ku qaata. Iskuulkan markii hore waxa uu ku yaalay gobolka Chicago gudaha dalka Mareykanka, halkaas oo uu deganaa muddo laba. iskuulka labaad ayaa wuxuu yahay iskoolka ayaa waxa uu u qaybsan yahay laba heer oo kala duwan. heerka sare oo ah caruurta da'doodu u dhaxayso 11 ilaa 18 jir ah, iyo heerka hoose oo ah caruurta 4 sano ilaa 11 sano jir ah. iskuulku waxa uu manhaj ah ma laha, arday kasta fasalka uu doono ayuu ku biiraa. ardayda ayaana ka ah kuwa dejiya qaanuunka iskoolku leeyahay. waxaa jira kaasoo ay ardaydu daawanayaan daweera kadibna ay qodobadooda ka doodayaan. macallimiinta iskuulku waa sida kormeer oo qura. iskuulkan wuxuu iskoolada kala mideeda kale kaga duwan yahay imtixaan lama galo, lama qaado, darajooyin lama bixiyo, oo ma jiraan arday wax la siinayo. waa un waayo aragnimo oo noloshiisa qofkaasu caadiga ah uu ku maarayn karo. qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay iskuulkan ayaa lagu furay galbeedka Philippines sanadkii 2006. iskuulkan ardaydu wax buugaag ah ma qaataan, taa beddelkeeda ardaydu waxay adeegsadaan kombiyuutar. ardayda waxa ay xisaabta lagu baraa aabka OneNote oo ah application aad ku isticmaali karto moobilkaaga gacanta. macallimiintuna waxay adeegsadaan shaashado smart oo ay sawirada kaga maarmeen. haweeney ayaa aas-aastay iskoolkan iyada oo maalin maalmaha ka mid ah soo raacday tareen u socota goobteedii shaqada. markaas ayaa aragtay ciyaal yaryar ah oo tareenka laalaada kadibna ummadda u gacan haadsanaya. markaas ayay fikirtay, waxayna ku talisay in ay iskool furto. carruurtaana mustaqbalkooda inay mustaqbal doonayaan. waxay halkaa ku aas-aastay iskool mashruuc oo ay wax ku bartaan in ka badan 40 milyan oo arday ah oo gobol kasta oo Indiyaan ah degan. waxayna halkaa ka dhashay iskool bosteejo tareen la magac baxay. dowladda Bangladesh sanadkii waxaa ka dhaca fatahaado waaweyn, sidaa darteed carruurtu waxay ku adag in ay iskuulada gaaraan maadaama iskooladu ay biyo galeeno noqdeen. sidaa darteed si loo qabsado xaaladda dadka waxaa la sameeyay iskuulo iyo goobo caafimaad oo webiyada dushooda laga sameeyay si marka ay daadad yimaadaan aana marnaba loogu dhiban. iskuulka doomaha waxa uu iskugu jira gaadiid carruurta guryahooda laga geeyo iyo fasallo wax ku bartaan. waxay ardaydu ka soo qaadaan webiyada jinkooda. waxaa ka faa'iidaysta 7,000 oo carruur ah ilaa markii la sameeyay sanadkii 2002.